محمد ربه جهرتان بيغاذة معجز به الأنوار munaasabadan oo si heersar ah loo soo agaasimay ayaa lagu xusayay habeenkii la dheelmiyay nabigeena maxamed ah nabadii naxariis korkiisa ahaatee waxaana lagu qabtay xalay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb qaybahaasi oo ay ku jiraan culimadiin macallimiin dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo isugu yimid masjid jaamaca magaalada ee Raqayda intii munaasabadan ay socotay waxaa lagu soo bandhigay nabi amaan iyo sugaano diini ah oo lagu muujiyay jacaylka iyo sharafka nabigeena uu ku leeyahay ummadda muslimka ah iyo habeenkan qiimaha weyn leh ee muslimiinta oo dhan qiimaha u leh sidoo kalena ah habeenkii la waajib yeelay 5 salaadood ee waajibka ah محمد ربه جهرتان بيغاذة معجز به الأنوار محمد ربه جهرتان بيغاذة معجز به الأنوار ما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترغى إلى أن نلت منزلتان شغل بلد dhuusamareeb Sheekh Cali Nuur Cilmi iyo Macallin Cabdullaahi Sheekh Maxamed ayaa si qoto dheer uga hadlay dhacdadii barakaysaneed ee Israa wal Mi'raaj habeenkii lamiga laga dheelmiyay masjidka xaramka loona dheelmiyay masjidka Baytul Maqdis iyagoo bulshada u sharaxay casharada iyo cibrada ku jirta safarkii nabiga cirka loo qaaday culimada ayaa bulshada ku booriyay inay ku daydaan akhlaaqda wanaagsan ee nabiga isla markaana ay ku dadaalaan toosinta cibaadada iyo isku duubnida bulshada muslimka ah amiinkaas ilaahay sababta uu nabiga u dheelmiyay oo maaragtay cilo uga dhigay linuriyahu min aayaatina aayaadka ilaahay oo la tusayay wax la xisaabi karo ma waa waad iyo aad u badan sida darteed hameenku hameen aad u weyn weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka faa'iidno kulankan inaan nabigeena ku dayanno sallallahu alayhi wa sallam salaadii caawo kala la soo farad yeelana si gooniyahan isaga dardaarmaynaa in la xifdiyo jamaaca lagu tukado masaajida lagu tukado aan la dayicin siday ku asixi lahayd la barto iyadoo asaxday in jamaacooyinka lagu la tukado
oo aan maaragtay la dayicin taasna waa isu dardaarmaynaa guud ahaanna waxaan isu dardaarmaynaa inaan nabigeenna ku dayanno sala allahu calayhi wasalam habeen weyn weeye ilaahay weyneeyey waa habeenkii rasuulka la dheelmiyey oo min maka ilaa baytilmaqdis ka bacdina curuujkii ilaa 7 samaawaat ila alcarshi ilaa maa shaa allah habeenkii salaadaha la soo farad yeelay weeye waa habeen qiimo weyn muslimiinta ugu fadhiya habeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo mara habeenkii ugu fadli badnaa weeye haddii rasuulka habeenkii ugu fadli badnaa meel kastuu ka fadli badan yahay waxaa la yidhi ruuxii israha inkira aayaddii ayuu beeniyey waa gaaloobahayaa halay laakiin ruuxii micraajka yidhaah ma jiro axaadiisul uxaad uu ku sugnaaday waa faasiquu noqonhayaa ugu dambayn munaasabaddan ayaa waxay ku soo dhammaatay duco iyo xusuus lagu muujiyey mahadda alle iyo jacaylka ummadda muslimka ah ay u qabaan rasuulkooda maxamed nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaatee cabdullaahi warsamarooble warbaahinta qaranka dhuusamareeb